Qiyaastii 2440 sano ka hor, boqor la oran jiray Ascad Abukarba ayaa Yaman xukumi jiray, wuxuuna boqor ka ahaa boqortooyadii Ximyar. Reer Yaman, boqorka waxay ugu yeedhi jireen Tubbac, waana sababtoo boqorkani taariikhda ugu caanbaxay magaca Tubbacul Awwal ama Tubbacii koowaad. Tubbac waxaa loogu wici jiray keliya boqorka isku maamula saddexda qayb ee Yaman ay ka koobnayd, kuwaas oo kala ahaa Ximyar, Saba iyo Xadramawt. Boqor Tubbac iyo qoomkiisa wuxuu Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala inoogu sheegay Qur'aanka Kariimka, waxaana lagu sheegay suuradaha kale ah Duqaan iyo Suuratul Qaaf. Waxayna ahaayeen kuwo mushrikiin ah oo sanamyada caabuda. Maalin ayaa Tubbac uu safray, waxaa la socday wasiirkiisii. Ku dhowaad 113,000 oo qof ayaa raacay, waxaana sidoo kale raacay 130,000 oo fardooley ah. Magaalo kasta oo safarkan weyni uu gaaro, dadku waxay ula dhaqmi jireen si sharaf iyo karaamo leh, aad ayayna u soo dhaweyn jireen, ayaga oo ka baqi jiray ciidankan aadka u weyn. Tubbac intii uu socdaalkaasi ku jiray wuxuu magaalo walba ka soo xulayay 10 culimo oo ku biirinayay safarkiisa. Haddaba kadib markii ay sidan oo kale u booqdeen magaalooyin kala duwan, ilaa 4,000 oo culimo ah ayaa isugu soo baxay safarkii Tubbac. Safarkan markuu soo gaaray magaalada Maka, reer Maka ma aysan soo dhaweyn boqor Tubbac iyo safarkiisa. Markuu taas arkay, Tubbac aad buu u cadhooday. Wuxuu yidhi wasiirkiisii oo weydiiyey sababta keentay arrintan. Intaa kadib, wuxuu ku jawaabay, boqorku dadka halkan jooga waa kuwo aad u yaab badan. Magaaladan waxaa ku yaala dhismo lagu magacaabo Kacba. Dadkan waxay caabudaan sanamyada. Markuu taas maqlay ayuu go'aan ku gaadhay inuu dadka magaalada Maka uu laayo, dumarkooda iyo carruurtoodana xidho. Intaa waxaa dheer, wuxuu sidoo kale damcay inuu dumiyo Kacbada, kadibna loogu yeeri doono Qirbaax oo laga wado meel cidla ah. Waxaa dhacay in isla markii uu fikirkani ku soo dhacay Tubbac, uu madax xanuun aad u daran qabtay. Biyo uraya ayaa ka soo dareeray indhihiisa, dhegihiisa, sankiisa iyo weliba afkiisa. Sababtaas awgeed, ur aad u xun ayaa isaga ka iman jirtay, taasoo sababtay inay adkaato in la istaago xitaa in yar. Wasiirka ayaa talo ka doontay dhakhaatiirta, balse ma jirin cid daweyn karta. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay u muuqato in ay jirto mucjiso ayaga ka saraysa oo ku lug leh arrintan, taasoo ka baxsan awoodda dhakhaatiirta. Xanuunkan ayaa hurdadii Tubbac qaribay. Maalmo kadib nin caalim ah ayaa u yimid wasiirkii xilli habeen ah, wuxuuna si qarsoodi ah ku yidhi, haddii boqorka oggolaado inuu su'aasheeda si run ah uga jawaabo, markaas waan daweyn karaa. Wasiirka arrintii ayuu boqor Tubbac u sheegay, oo si aan gabasho lahayn ayuu u oggolaaday boqorka. Haddaba markii uu caalamkii gaaray Tubbac oo aysan jirin cid kale oo aan labadooda ka ahayn, ayuu weydiiyey, boqorow run ii sheeg, ma jirta arrin aad qalbigaaga ku haysid oo ku saabsan Kacbada? Isla markiiba wuxuu bilaabay inuu caalamkii u sheego wuxuu damacsan yahay. Isagoo dhegaysanaya ayuu yidhi, isla ujeeddadaada xun ayaa ah sababta xanuunkaaga. Xusuusnow in milkiilaha Kacbada uu xitaa og yahay xaqiiqooyin qarsoon. Haddaba qalbigaaga ka saar afkaarta xunxun, sida wanaaggaagu ku jiro ayaana taa ah. Tubbac oo ikhtiyaar kala haysan, ayuuba isla markiiba ka toobad keenay xumaantii uu damacsanaa oo intuusan aqoonyahanku tegin ayuu si buuxda u bogsaday. Tubbac isagoo ka markhaati kacaya awoodda Alle weyne ayaa qalbigiisa iimaanka galay. Isaga oo arkay xaqiiqada iyo jiritaanka Alleh, wuxuuna qaatay diintii Sayyidina Ibraahim calayhi salaam. Kadib si uu u xurmeeyo Kacbada, wuxuu sidoo kale u diyaariyey 7 maro oo Kacbada lagu daboolo. Intaa ka hor, qofna ma daboolin Kacbada. Intaa kadib, Tubbac wuxuu ku amray reer Maka inay Kacbada ilaashadaan, wuxuuna u baxay Yathrib, waa magacii hore ee magaalada Madiina al-Munawwara. Ciidankii iyo xubnihii la socdayba waxay caado ka dhigteen in aanay muddo joogin meel gaar ah. Meel bay qabsan jireen kadibna way dhaqaaqi jireen. Si kastaba ha ahaatee, markay gaadheen Yathrib, 400 oo culimo ah oo ka mid ahaa kooxdii Tubbac ayaa u sheegay in aanay doonayn inay sii safraan. Taa beddelkeeda, waxay rabeen inay ku nagaadaan Yathrib weligood, inkasta oo meeshu waqtigaas ahayd meel aan la degi karin. Boqor Tubbac wuxuu yidhi wasiirkiisii ugu dhowaa, wuxuuna ka codsaday inuu weydiiyo sababta ay culimmadu u diideen inay u safraan meel kale. Weliba waxay ahaayeen kuwo ka qayb qaata socdaalkiisa, aad buuna ugu baahnaa. Culimmadu waxay ku macneeyeen inay Maka ka yimaadeen oo ay Yathrib yimaadeen markay baranayeen kutubtooda,
waxay ogaadeen in dhulkani yahay meeshii ugu dambeysay uu u haajiro rasuulkii ugu dambeeyey ee Maxamed sallallahu calayhi wasallam oo ka hajiray magaalada Maka. Waxay darseeyeen inuu Ilaahay Maka ka soo saari doono, waxayna ogaadeen inuu xaqiijin doono kelinimada Alle. Culimadu waxay markaasi sheegeen inay ogaadeen in kuwa la kulma ay yihiin kuwa dadka ugu nasiibka badan, iyaguna waxay rabeen inay la kulmaan ama ugu yaraan ay halkaas degaan si carruurtooda ula kulmaan mustaqbalka. Boqorku wuu aqbalay hadalkooda, wuxuuna sidoo kale aad u jeclaaday rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Markaa buu go'aansaday isna inuu Madiino uu joogo uu sugo aragtida rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Sanad markuu sugay ayuu Tubac go'aansaday inuu safarkiisa sii wato. Ka hor inta uusan sidaas yeelin, wuxuu culimadiisii u dhisay 400 oo guri oo culimadu ay degto si ay halkaas weligood u deganaadaan. Boqor Tubac intii uu noolaa wuxuu qomkiisa u sheegi jiray inay Alle kaliya ay caabudaan oo iska daayaan shirkiga. Qomkiisana sidaas ay yeeleen oo hadalkiisa ay maqleen. Wuxuu culimada caalamka ugu sareysiiyey warqad, taasoo ahayd inay isku gudbiyaan fac ka fac oo aakhirka lagu wareejiyo rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Markaa kadib boqor Tubac wuu safray, wuxuuna aaday magaalada Qalsaan ee waddanka Hindiya. Dhimashadii boqor Tubac kadib, qoomkii Tubac waxay dib u bilaabeen shirkigii iyo dulmigii ilaa uu Alle markii dambe ka halaagay. 1000 sano kadib, isla dadkaasi waxay maqleen bishaaradii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo wuxuu soo gaadhay Quba oo ku taal duleedka Madiina. Sugitaankii ugu dambeyntii wuu dhammaaday, sidaa darteed waxay isu diyaariyeen inay la kulmaan oo ay u dhiibaan warqaddii boqor Tubac. Saxaabiga Cabdiraxmaan bin Cawf wuxuu markaas ku sugnaa magaalada Madiina, wuxuuna la kulmay qoladan. Wuxuu ku wargeliyey in aadaabta saxda ah ee soo bandhigidda warqadda ay tahay in qofka ugu sareeya qabiilku u gudbiyo warqadda rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Midka qabiilka ugu sareeya magaciisa wuxuu ahaa Abu Layla. Markaa buu Abu Layla ka soo ambabaxay Madiina, wuuna aaday Quba isaga oo waajib ku ah inuu siiyo warqadda Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Waxaa dhacday in rasuulka sallallahu calayhi wasallam aanu waqtigaas joogin Quba. Wuxuu la socday qabiilka Saalim oo wuxuu ku sugnaa dariiqa u dhaxeeya Madiina iyo Quba. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu markii dambe arkay Abu Layla oo dariiqa ku socda. Cilmigii uu Eebbe siiyey ayuuna ku gartay oo ogaaday sababta uu la kulmayo. Markaasuu Nabigu sallallahu calayhi wasallam arkay oo ku yidhi, ma tahay Abu Layla? Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu kaloo yidhi, ma waxaad ii haysaa warqaddii Tubac? Abu Layla wuu yaabay, sidee buu qofkani ku ogaaday inuu magaciisa Abu Layla yahay iyo inuu warqadda Tubac u hayo? Markuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam weydiiyey yaa tahay, rasuulku wuxuu ugu jawaabay, anigu waxaan ahay Muxamed. Markaasuu ku wargeliyey inuu ku laabto Madiina, halkaas uu dhawaan soo gaari doono. Markuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam gaadhay Almadiina Almunawwara, wuxuu u wakiishay Abubakar inuu warqadda ku aqriyo dadka hortooda. Warqadda ayaa u qornayd sida tan: Maxamedow, runtii waan ku rumeeyey adag iyo kitaabka Alle kuu soo dhiibay. Aniguna waxaan rumaysnahay diintiina, waxaana rumeeyey Allihiina wax walba awooda. Haddaan kugula kulmo Yathrib, markaas ayaan ahay mid nasiib badan. Haddaanan kula kulminna, fadlan ii shafeeco maalinta qiyaame. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam markuu warqaddii maqlay wuxuu 3 mar yidhi, soo dhawow walaalka dhowrsanow. Markuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam agtiisa barakaysan soo dhigay carrada magaalada Madiina, dadku waxay bilaabeen inay ugu heesaan dalacal Badru. Markaas kadib, magaalada Madiina waxay noqotay magaalo barakaysan. Markaas qolo kastaa waxay doonaysay inuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam gurigooda soo dego. Laakiin rasuulku wuxuu yidhi, ka taga hashayda, waxay ku istaagi doontaa meeshii amarka Alle weyne ku sugnaaday. Haddaba hashay waxay ku hor istaagtay gurigii saxaabigii rasuulka ee Sayyiduna Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Abu Ayyub al-Ansari wuxuu ka soo jeeday farcankii boqor Tubac. Gurigiisan wuxuu ahaa isla gurigii Tubac uu si gaar ah ugu dhisay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. qisadan waxaa qoray taariikhyahano qaali ah sida Ibnu Isxaaq, Ibnu Casaakir iyo Imaam al-Qurtubi. Asxaabta qaaliga ah inagu soo biira oo subscribe inoo saara channelka, waad ku mahadsantihiin daawashadiina.